waxaana wanaagsan daawadayaal halkan nagala socotaan waa Rugta TV waa mar kale iyo barnaamijkiina fanka iyo suugaanta oo aan kaga hadli doonaa fanaanka caanka Nimcaan Hilaac iyo DJ Sweer oo ah DJ-ga ugu weyn Soomaalida ayaa waxaa soo kala dhexgalay khilaafkaas oo ku aadan kadib markii uu DJ Sweer uu yimid magaalada Muqdisho halkaas uu doonayay in uu bandhig kaga qabto ganacsiyeed taas oo uu ku soo bandhigayo shirkadda uu isaga leeyahay. Shirkadaas ayaa la sheegayaa shirkadaas inay tahay shirkad sharaabka soo saarta, waxaana codsi u diray fanaaniinta kala duwan ee ugu horeeya fanaanka caanka ah ee Nimcaan Hilaac. Waxaana la sheegayaa in fanaanka uu soo bandhigay inuu kala soo qayb galo barnaamijkaas uu doonaya DJ Sweer inuu ku qabsado gudaha Muqdisho. Hase ahaatee fanaanka caanka ee Nimcaan Hilaac ayaa gebi ahaanba kasoo horjeestay oo ka biyadiiday, waxaana uu DJ-gu dalbaday in fanaaniin ay uga timaado magaalada Nairobi halkaasi oo ay kasoo kici timeen. Haddaba waxaa kale oo soo aqbalay fanaanka caanka ah ee Xasan Gantaal oo hadda ku sugan gudaha Muqdisho halkaasi oo bandhigaas uu doonaya DJ Sweer in uu kala soo qayb galo. Xurguftan u dhaxaysa fanaanka caanka ah ee Nimcaan Hilaac iyo DJ-ga ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli oo ay labadaasi DJ-gaas iyo fanaankaasi ay dalka dibaddiisa ay tageen halkaasi oo ay showyo kala duwan kusoo qabteen, laakiinse lagu heshiin waayey ayaa la leeyahay lacagta halkaasi ka soo xarootay. waxaana DJ-ga ay isku qabteen baa la sheegayaa in fanaanka Nimcaan Hilaac lacagtii kasoo gashay ama dakhligii kasoo galay showgii ay ku qabanayeen dibadaha in lagu heshiin waayo, taasina ay ka dhalatay carqalad weyn oo ah in khilaaf weyni uu kala dhex galo fanaanka caanka ah ee Nimcaan Hilaac iyo DJ-ga weyn ee Soomaaliyeed ee DJ Sweer. Ilaa hadda lama ogsoona meesha ay ku dambeyn doonto xaaladda DJ-ga iyo sidoo kale Nimcaan Hilaac oo ah fanaan weyn haddana ah mas-uul ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Fanaanka ayaa waxaa la sheegay in dabeecadiisii hore ay isbedeleen kabacdi markii laga dhigay mas-uul ka tirsan mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya. Fanaanka ayaa markii hore kasoo shacbaxay gudaha Hargeysa halkaas oo fanaaniintu awalba ay marka ugu horeysa ay kasoo shacbaxaan kadibna ay yimaadaan meel heer sare ah. Fanaanka ayaa laga soo dalbaday magaalada Hargeysa waxaana uu tegay magaalada Muqdisho, waxaana aakhirkii laga dhigay fanaankaasi mas-uul ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. hase ahaatee waxaana sidoo kale uu madax u noqday kooxaha ka dhisan magaalada Muqdisho ee fanka. Fanaanka ayaa maalmihii ugu dambeysay waxaa lagu xamanayay in uu la soo baxay siyaasado kala duwan oo uu markii hore aanu lahayn, taas oo loo aaneynaya mas-uuliyadda uu qaaday ee laga dhigay mas-uul. Sidoo kale DJ Sweer oo ilaa hadda aan bulshada wax la wadaagin ayaa isna DJ-ga aan hore loo ogsooneyn in uu business abuuray ama ganacsi ayaa hadda la ogaaday kabacdi, waxaanu doonayaa in sanadka cusub uu ku soo bandhigo gudaha Muqdisho sharaab uu sameeyey, taas oo shirkadiisu ay isaga uu leeyahay. sharaabkaasina uu doonaya inuu gudaha Soomaaliya soo geliyay halkaas uu shirkad weyn ka aasaasay. DJ-ga in badan ku jiray fanka ayaa sidoo kale isagana soo duubi jiray lana socon jiray fanaaniinta ayaa hadda waxaa u muuqataa in uu taajir weyn noqonayo oo isku bedelayo ganacsato weyn, taas oo la arkayo marka uu muuqaalo soo dhigay inuu xayeysiinayo sharaabka shirkadiisa. Marka la galo barta uu ku leeyahay Snapchat-ka ayaa waxaa lagu arkaya DJ-ga oo meelo kala duwan u kala gooshayo halkaasi oo dad fara badan oo Soomaaliyeedna ay uga xidhan yihiin barta uu ku leeyahay Snapchat-ka, waxaana ku jira dadka ugu badan Soomaalida ee shacbiyada ku haysta Snapchat-ka ee halkaasi wax ku soo bandhiga. Fanaanka caanka ah ee Nimcaan Hilaac ayaa isna hadda waxa uu noqday fanaan runtii aad loo jecel yahay kadib marka uu dowladda federaalka ka noqday mas-uul ka tirsan xukuumadda dowladda federaalka ee Soomaaliya. hase ahaatee Nimcaan Hilaac dadka aadka u dhaleecaya ayaa waxay leeyihiin fanaanka waxa uu la soo baxay dabeecado kala duwan oo aan markii hore lagu aqoonin, haddase laakiin fanaanku uu u muuqdo mid gebi ahaanba dabeecadiisii hore bedelay. Sidoo kale fanaanka dadka aadka u taageera waxa ay
sheegeen in baryahan dambe fanaanku uu heesihii u soo qaadi jiray bulshada uu gebi ahaanba ka mashquulay oo ay mashquulisay mas-uuliyadda uu u hayo xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya, taas oo maalmihii ugu dambeysay uu fanaanku ku sugnaa magaalada Muqdisho oo halkaasi ku sugnaa. Fanaanka ayaa in badan waxa uu isku dayay in uu magaalada Hargeysa yimaado, hase ahaatee gebi ahaanba laga hor istaagay, taas oo ay dadku badankoodu u aaneeyeen in fanaanku uu markii horeba doonayay in fanaaniin kale oo xidigaha geeska ah uu magaalada Hargeysa kasoo kaxaysto oo uu halkaa Muqdisho geeyo, hase ahaatee aanay u suurtoobin. Waxaana sidoo kale fanaanka uu marar badan isku dayay in magaaladiisii uu ku dhashay ee Boorama uu yimaado, taas oo ciidamada Somaliland ay ku baacsadeen gudaha Boorama, aakhirkiina u baxsaday halkaas iyo Jabuuti, kadibna tegay halkaas iyo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, waxaana u soo duulay magaalada Muqdisho oo hadda fadhigiisu yahay. Fanaanka ayaa maalmihii ugu dambeysay waxa uu showyo ku kala qabsanayay gudaha magaalooyinka Jigjiga, Soomaaliya iyo guud ahaan wadamada reer Yurub, halkaasi oo maalmihii ugu dambeysay ee DJ Swear ay ku wada socdeen oo halkaasi ay markasta asxaab ku ahaan jireen. Laakiinse xurguftan u dhexeysa DJ Swear iyo Nimcaan Hilaac ayaa noqon doonta mid halis ku ah fanaanka, waayo fanaanka marka uu hees qaadayo ama marka uu show qabanayo waxa uu u baahan yahay DJ gacan yaro u noqda oo u kala kiciyo fanka. Waxaana la sheegayaa in uu waayi doono fanaanka Nimcaan Hilaac DJ-gii ugu qaalisnaa Soomaali. DJ-ga ayaa maalmihii ugu dambeysay waxa uu wadwaday howlaha ku aadan in uu magaalada Muqdisho bandhig ganacsiyeed kusoo bandhigo, taas oo uu shirkad u aasaasay oo halkaasi kusoo bandhigi doono. Saatee fanaanka ayaa waxaa la arki doonaa iyo DJ Swear ba xaaladoodu maalinta ama sanadka cusub 2020 waxyaabaha uu la kowsanayo, waxaananu eegi doonaa meesha ay ku dambeyso khilaafka u dhexeeya fanaanka iyo DJ-ga weyn ee Soomaalida ee caanka ah ee DJ Swear. DJ Swear ayaa socodkiisu badan yahay, taas oo uu magaalooyinka Soomaalida meel kasta uu ka dego iyo guud ahaan caalamkaba. DJ-ga ayaa DJ-ga kaliya ee Soomaalidu leedahay oo caan ah oo dadka aadka u yaqaanaana ay sheegaan in DJ-gu uu yahay shaqsi wanaagsan oo bulshada sumcad iyo karaamo ku dhex leh. Sidoo kale dadka aadka u taageera DJ Swear ayaa waxay sheegaan inuu muunad u yahay Soomaalida. Khilaafka DJ-ga iyo fanaanka caanka ah Nimcaan Hilaac ayaa runtii waxay dadku aad ku falanqeeyaa ay u arkaan in uu runtii yahay mid aad iyo aad laga naxo. Sidoo kale fanaanka caanka ah iyo DJ Swear ayaa ahaa asxaab aad iyo aad isku jecel oo nolosha wadaagi jiray, hase ahaatee imika waxay u muuqdaan in gebi ahaanba ay hadda soo dhammaatay, soona xidhantay saaxiibtinimadii dheerayd ay wada lahaayeen fanaanka caanka ah ee Nimcaan Hilaac iyo DJ Swear. Waxaananu eegi doonaa meesha ay ku dambeyso xaaladda DJ Swear iyo Nimcaan Hilaac oo runtii aad looga deyrinayo, taas oo u muuqata in khilaafkoodu uu salka ku hayo lacago ay isku qabsadeen, taas oo noqon doonta fadeexada abidtii ugu xumeed ee soo marta DJ-ga iyo fanaanka caanka ah ee Nimcaan Hilaac. waad ku mahadsantihiin daawadayaal meel kasta oo dunida jaclada ka joogtaan. waxaan leenahay subscribe noo saara, channelka furta la gareeyo, comment wanaagsan ka soo bixiya idinkoo meel kasta oo jooga. asxaabtayda sina share gareeyo la wadaaga asxaabtiina.